mudanayaal iyo marwooyin sida ogtiin wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda iyadoo gudanaysa waajibaadkeeda qaran ee uu siinayo xeerka isgaarsiinta iyo boosaha isla markaana fulinaysa siyaasadda e-government-ka ee ansixiyeen golaha wasiirada Jamhuuriyadda Soomaaliland taariikhda markay ahayd 27 Oktoobar 2019 siyaasaddaas oo ka koobnayd 3 waaxood oo kala ahaa government to citizen siyaasadda awoodsiinta muwaadiniinta government to business siyaasadda wada shaqeynta ganacsiga government to government siyaasadda isku xidhka dawladaha nidaamka dawladaha hadaba taayna maanta halku joognaa waxa weeyaan siyaasadda isku xidhka nidaamka dawladda ay ku shaqeyso si loo fuliyo siyaasadda isku xidhka dawladaha waa in la raaco marka hore ujeedooyin objectives ay ka mid tahay hagaajinta casriyeynta ICT-da kaabayaasha dawladda hirgelinta adeeg elektrooniga saameynta madasha adeega dawladda ee wadaagta xogta isku xidhka xogta dawladda dejinta iyo hirgelinta siyaasadda barnaamijka daahfurnaanta furan saameynta guddi heer qaran ah oo ICT committee si loo fuliyo siyaasadaha e-government-ka qaranka ee wasaaraddu gacanta ku hayso waxay wasaaraddu bilowday qorshayaasha nidaamka isku xidhka dawladda iyada oo ay lafdhabar u tahay wasaaraddu in ay casriyeyso shaqada dawladda si shacabku helo shaqo fudud oo si hufan ku soo gaadha kulankeenu maanta hadaba wuxuu daba socdaa kulan horaantii ka dhacay sanadka ka dhacay hoolka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda kaasoo la isku afgartay in la isku furo nidaamka sistemyada aynu ku shaqeyno ee dawladda waliba wasaaradaha kaabayaasha dhaqaalaha ku shaqada hadaba higsiga wasaaraddu waxa weeyaan sidii dhaqaalaha wadanka ay u hagi lahay tiknoolajiyaddu si loo gaadho higsigana waxa wanaagsan in aynu sameeyno nidaam isku xidhan oo furan oo maxay ahayd muwaadiniinta reer Soomaaliland ay u helaan adeega dawladdu bixiso iyagoo jooga goob kasta iyo guryahooda si ay meesha uga baxdo xogta duplicate-ka ee mar walba la weydiiyo muwaadiniinta maanta waxaynu wasaarad ahaan idinka filaynaa mudanayaasha halka nagala soo qayb galay agaasimayaasha guud ugu mudan yihiin inaad nagala shaqeyn doontaan nalana fulin doontaan nala hirgelin doontaan adeegan cusub ee aanu bulshada u soo wadno waxaan idinka mahadnaqayaa sida wanaagsan ee aad noo soo ajiibteen madasha noogu soo caamirtaan idinkoo hawlo muhiim ah hawlo adag qaranka u haya waliba waqti ay ka go'an tahay shaqada dawladdu waan idinka mahadnaqayaa kasoo qaybgalkiina waxaan rajaynayaa shirkan inaad wax badan ku fahmi doontaan waxaan idin soo bandhigi doonaa runtii waxa weeyaan siduu nidaamkaas u shaqeyn doono idinkuna waad nala qaadan doontaan haddii alla yidhi aad baa mahadsantihiin